wiilkan hawada ayuu xasaasiyad ka qabaa wuxuuna ku xiran yahay kubad hawo leh tan iyo markii uu dhashay. Buufin ayaa ku dhacaya hooyadiisna way qabataa kadibna mindi ayay ku muddaa. Walaal ilaah dartiis follow iyo like igu saar tartan ayaa ku jira mahadsanidooyadu galoofyo ayay xirataa oo wiilkeeda ayay ka salaaxdaa kubadda dusheeda. Waxay u diyaarinaysaa cunto wiilka taas oo la nadiifiyey. Markasta oo deris ku jeesjeeso wiilka waxay qaadataa qori biyo ah oo ku booda. Waxay u sheegtaa wiilka in adduunka dibaddiisu cabsi badan yahay wiilkuna wuxuu ku sii nagaadaa kubadda isagoo aan walwal qabin ilaa uu ka weynaado. Maalin maalmaha ka mid ah gabar ayaa gaariga dhaqaysa dabaqa hoose. Wiilkuna jacayl ayuu u qaadaa aragtidii ugu horeysay. Gabadhii sidoo kale way aragtaa waxayna u timaadaa marka qofna guriga joogin. Labadoodu waxay noqdaan saaxiibo ciyaara laakiin maalin maalmaha ka mid ah gabadhii way ka tagtaa wiilka. Wiilku wuxuu sameeyaa dhar difaac ah oo kubad ah wuxuuna si aamusnaan ah uga baxaa gurigiisa si uu gabadha dib ugu soo helo. Laakiin isla marka uu guriga ka baxo baabuur ayaa si toos ah ugu soo socda. Nasiib wanaag wuxuu leeyahay dhar difaac ah sidaas darteed ma dhimanayo. Dadka baabuurka saaran way garanayaan wiilka waxayna ku qaadaan baabuurka iyagoo si xamaasad leh isku dayaya inay ka caawiyaan inuu gabadha helo. Ma u malaynaysaa inay yihiin kuwa lagu kalsoonaan karo? Hadda inta soo gartay follow iyo like tadhig kana tag mahadsanid.